ismaqal iyo maalin wanaagsan waa markani wararkii ugu xiisaha badnaa Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah maxaa ka jira in Jubbaland ay is hortaagtay kulan dhaxmari lahaa wakiilada IGAD iyo odayaal dhaqameed, ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo toogtay haweeney isqarxin rabtay, mas'uul ka tirsan Hirshabeelle oo ka badbaaday isku daydil, guddiga doorashooyinka Jubbaland oo go'aan culus ku dhawaaqay, dowladda federaalka Soomaaliya oo ka jawaabtay cabasho loo soo jeediyay shirkadda Ethiopian Airlines, ilhaan cumar oo la saaxiibtay nin caddaan ah, arrimo xasaasi ah ayaan idinkaga haynaa, isku day uu xabsiga uga baxsan rabay madaxweyne cabdi ilay oo fashilmay. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa markaani u diyaar garooba warkaani oo intaasi ka faahfaahsan. aynu ku bilaabnay hotelka Maka ee magaalada Kismaayo. waxaa shalay ka dhacay buuq waxaana la arkay sawirro la baahiyay oo muujinaya odayaal badan oo bannaanka hotelka dhooban. odayaashaasi ayaa la sheegay in Jubbaland ay is hortaagtay kulankii ay la yeelan lahaayeen wakiilada IGAD oo maalmahani Kismaayo ku sugnaa. hase yeeshee waxaa soo baxay maanta xog ku saabsan sida ay wax u dhaceen. wakiilka IGAD ee Soomaaliya Dr. Maxamed Guyow oo maalmahani ku sugnaa Kismaayo kulamana la qaadanayay guddiga doorashada musharaxiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka aqbalay codsi ka yimid laba ka mid ah saxiixiyaasha xildhibaanada Jubbaland oo ahaa in ay la kulmaan wakiilada IGAD. labada ugaas oo kala ahaa ugaas Maxamed Xaashi iyo ugaas Qorane ayaa codsigoodii waxaa aqbalay wakiilka IGAD, sidaasna kulanka lagu qaban qaabiyey iyadoo hal shuruud lagu dhigay in uusan hal qof kale oo soo raacin. hase yeeshee labada ugaas ayaa la sheegay in ay soo raaceen odayaal dhaqameedyo kale oo aad u badan, taas oo aan shuruudda lagu xiray kulankooda aan ku jirin, maadaama uusan jirin oday dhaqameed kale oo ka mid ah saxiixiyaasha Jubbaland oo aan labadooda ahayn oo ka maqnaa kulankii hore ee IGAD la qaadatay saxiixiyaasha Jubbaland. sidaas darteed wakiilka IGAD u fadhiya Soomaaliya ayaa gabi ahaan diiday kulankaasi maadaama ay odayaashu ballantii ka baxeen. sida aan xogta ku helnay mana jirin wax lug ah oo maamulka Jubbaland arrintaasi ku lahaa. maanta oo Khamiis ah 8 bisha 8 2019 ayuu wakiilka IGAD la kulmayaa labadii saxiixiyaal maadaama ay kulankii hore ay ka maqnaayeen kii shalayna uu baaqday. wararka inaga soo gaaraya gobolka Gado ayaa ku waramaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay haweeney isqarxin rabtay ku toogteen gudaha magaalada Baardheere ee gobolkaasi. haweeneydaani ayaa bartilmaameedkoodii wuxuu ahaa saldhigga booliska degmadaasi sida ay sheegeen ilo dhinaca amniga. saraakiil ka tirsan kuwa xoogga dalka ayaa warbaahinta u sheegay in haweeneydaani ay ka soo degatay gaari caasi ah oo ka yimid magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. sida oo kale waxaa saraakiishu sheegeen in ay bamgacmeed ku tuurtay askar ilaalo ka haysay afaafka hore ee saldhigga, isla markaana ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 2 askari. wararka ayaa intaasi ku daraya in baaritaano lagu sameeyey meydka haweeneydaasi lagana helay walxaha qarxa iyo lambar sireed u gaar ah. weerarkani fashilmay ayaa ku soo aadaya iyada oo maalmihii la soo dhaafay abaabul dhanka xogaha al-shabaab ay ka socdeen degmada Baardheere ee gobolka Gado. dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan shaacisay in ay wado qorshe ay saldhig uga furanayso magaaladaasi, kaas oo laga hagaagi doono dagaalka al-shabaab looga sarreeyo gobolka Jubbada Dhexe. dhanka kale wararka laga helayo dalka Itoobiya ayaa sheegaya in uu fashilmay isku day lagu doonayay inuu xabsiga uga baxsado madaxweynihii hore ee ismaamulka Soomaalida dalkaasi Cabdi Maxamuud Cumar. koox hubeysan oo dhalinyaro ah ayaa la sheegay inay isku dayeen inay xabsiga ka sii daayaan Cabdi Maxamuud Cumar, balse waxaa ka hortagay ciidamada ammaanka kadib iska hor imaad dhaxmaray labada dhinac. sida ay qortay Addis Istaan, kooxdaani ayaa xabsiga uu ku xiran yahay madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalidaasi 5tii bishani hordhigay gaari nooca fan ah si uu ugu baxsado, balse isku dagaasi uu fashilmay. Addis Istaan ayaa intaasi ku dartay in gacanta lagu dhigay raggii ka dambeeyey falkaasi isla markaana la xiray. sida oo kale saraakiil dhinaca amniga ayaa sheegay in xilliga uu dhacay falkaasi uu Cabdi Maxamuud Cumar ku maqnaa maxkamadeyntiisa, isla markaana ay doonayeen raggii in markii la soo celiyo ay xoog kula cararaan madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalidaasi
degmadaasi ayaa xabsiga loo taxaabay 6 Agoosto ee sanadkii 2018 waxaana loo haystaa eedeymo ka mid ah dil, jirdil, barakicin, gubidda goobo ganacsi iyo kaniisado. Gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in ay soo gabagabeeyeen soo xulidda xubnaha ku tartamaya kursiga xildhibaannimo ee baarlamaanka soo socda Jubbaland. Shir jiraa'id uu ku qabtay magaalada Kismaayo waxa uu ku sheegay in odayaasha dhaqanka ay soo dhameeyeen soo xulidda 3 qof ee kursiga ku tartamaya. Dadkani mid ka mid ah waa xildhibaanka kursiga difaacaya iyo 2 qof oo lagu soo daray. Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay in wixii haatan ka dambeeyo ay iyagu soo wareegtay dhamaystirka hawshani. Waxa uu tilmaamay in guddigooda ay marsiinayaan hab raacsan si ay u soo saaraan xildhibaanka ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee yeelanaysa maamulka Jubbaland. Gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland ayaa ugu dambeyntii shacabka Jubbaland ugu laabqaboojiyay in guddigoodu ay ku kalsoonaadaan, wuxuuna rajaynayaa in doorashada soo socota ay si cadaalad ah ku dhici doonto hadduu habedmo. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaallo xoogan oo ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Dagaaladani ayaa yimid kadib markay Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen guriga gudoomiyaha Jalalaqsi ee saldhigga ciidamada dalka Jabuuti ay ku leeyihiin gudaha degmadaasi. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in iska hor imaadkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Macadda ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ay ka dhashay weeraradaasi iyo dagaalada xigay intaasiba. Dhinaca kale, warar ka soo baxay Al-Shabaab ayaa la sheegay in gudoomiyaha degmada Jalalaqsi uu si dirqi ah uga baxsaday kadib weerar ay ku qaadeen hoygiisa. Sidoo kale waxay sheegeen in xilliga uu weerar ku dhacayay gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa ay ku sugnaayeen guriga la weeraray. Al-Shabaab ma shaacin khasaaraha gaaray dhankooda iyo kuwa ay geysteen. Waxa ay tilmaameen in dagaalyahanadii fuliyey weeraradaasi ay dib u soo laabteen. Muddooyinkii dambe Al-Shabaab ayaa kordhiyey dhaqdhaqaaqyadooda, waxaana ugu dambeyn weerar ay shalay ku qaaday saldhiggii booliiska degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dowladda Soomaaliya ayaa waxay ka jawaabtay cabasho ka soo yeertay guddiga ganacsatada diyaaradaha Soomaaliya. Cabashadaasi oo ay ka keeneen shirkadda Ethiopian Airlines oo gobollo ka mid ah Soomaaliya u safar tagta. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Omar ayaa sheegay in uu jiro heshiis u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku saabsan dhanka duulimaadyada oo ahaa kaasi oo horay loo kala galay 1988. Waxa uu sheegay heshiiskaasi in uu dhigayo in diyaaradda Ethiopian Airlines ay si toos ah uga soo bixi karto Addis Ababa ayna u safri karto magaalada ka mid ah dalka Soomaaliya, balse heshiiska uusan dhigaynin in ay Muqdisho ka baxdo oo Boosaaso ay u safarto. Wasiir Omar ayaa sheegay kaliya in heshiiskaasi uu sidaasi dhigayo, balse aysan jirin duulimaad shirkadda Ethiopian Airlines ay ka dhex samaysay magaalooyin ka mid ah Soomaaliya. Wargeyska Daily Mail ee caanka ah ayaa qoray in Ilhaan ay xiriir hoose la leedahay nin kaaliya oo ah oo lagu magacaabo Tim Maynard. Daily Mail ayaa shaaca ka qaaday in la arkay Ilhaan iyo Tim Maynard oo ayagoo gacmaha is haysta oo ka cashanaya maqaayad Talyaani ah oo ku taalo magaalada Los Angeles bishii March. Ila wareedyo ayaa Daily Mail u sheegay in Ilhaan oo 37 jir ah iyo Tim oo 38 jir ah ay xiriir hoose leeyihiin muddo dhowr bil ah. Tim ayaa waxa uu qabaa haweeney lagu magacaabo Mr. Beth Maynard, hase yeeshee waxaa la sheegay in uu dhowaan ka tagay guriga xaaskiisa isla markaana hadda uu ku nool yahay guri ku yaalo magaalada Washington DC oo sidoo kale Ilhaan ay ku nooshahay iyada oo xubin ka ah aqalka wakiilada Mareykanka. Sawirro ayaa muujinaya in Tim iyo Ilhaan ay si joogto ah isku dhinac joogaan ayaga oo ka qayb galaya dhacdooyin dhowr ah isla markaana u wada safray magaalooyinka Los Angeles, New York iyo meelo kale badan. Tim ayaa sidoo kale la sheegay in uu waqti la qaato gabadha Ilhaan ee dhashay ee Isra oo 16 jir ah iyada oo sawirro ay muujinayaan saddexdooda oo wada jooga. Waxaana markii ugu dambeysay la arkay bishii July ee dhamaatay. Tim waa nin ka shaqeeya istiraatiijiyadda dhanka doorashooyinka ee dimuqraadiga, waxaana la sheegay in ololaha Ilhaan Cumar ay $250,000 siiyeen shirkadda lagu magacaabo E-Star Group ee uu leeyahay, taasi oo shaqooyinka u qabatay Ilhaan. Cashada caashaqa Ilhaan
iyo tiim ayaa timid maalmo kadib markay Daily Mail ay shaaca ka qaaday in Ilhaan ay ka guurtay ninkeedii Axmed Xirsi oo ahaa aabbaha 3 carruur ah isla markaana u socdo qorshe furin ah xaalku.